aan ku bilaabo waa 2 February waa 2025 wararkii ugu dambeeyay dunida wacali dhinaca dunaasiyada caalamka oo idil si kasta iyo meel kasta aad maqlasaan aan ku bilaabo wali waxa sii socota kala beddelashada dadka loo yaqaan maxaabiista boqol iyo markaasi 80 ku dhawaad Falastiiniyiin ayaa la soo dhaweynaya iyadoo warbaahinta reer galbeedka isku dayay inay boombooniso saddex qof oo rag ah markii ugu horeysay ay ururka wax iska caabinta reer Falastiin ee gobonimada ay sii daayeen tan iyo intii ay taaba gashay xabad joojintu axadii labaad ee January 19 ilaa deerto boqolaal Falastiiniyiin ayaa la soo daayay dadka ayaa ku kala noqonaya deegaanadooda ay ku jiraan kuwa ku dhaqan Ramallah halkaas oo maamulka Falastiinta ay gacan ku samayska uu ka dhisan yahay sidoo kalena waxa la sheegay in boqolaal qof oo kale ay soo daay doonto Israa'iil basas ayaa dadka qaar kood lagu soo qaaday korsi horeysay hay'adda ICRC ayaa sheegtay dhinaca kale in Israa'iiliyiinta iyo ilaa hadeerta Xamaasiyiintu labaduba ay ka shaqeynayaan hanaanka kor u qaadista ee arrintaas ayadoo barbar socoto arrimo waaweyn oo iska horimaad leh ra'iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu ayaa goor dhaweeyay ka duulay garoonka diyaaradaha Ben Gurion International Airport asagoo ku sii socda sida muuqata dalka Mareykanka oo noqon doono sarkaalkii ugu horeeyay ee booqasho halkaasi ku taga tan iyo intii madaxweyne Donald Trump xilka madaxtooyada loo dhaariyay madaxweyne Trump ayaa go'aansaday in uu casuumo ayaa leeyahay ninka loo yaqaano Netanyahu waxaana wararku ay sheegayeen hadaba in Netanyahu ay diyaaradiisu ay qaadan doonto saacado aad u badan kadib markii la sheegay in dalalka qaarkood ay ka wareegi doonto dalka ugu dhow ay ka kudi jireen si ay u isticmaalo shot diyaaradeedu badda Mediterranean-ka intay dul marto wuxuu ahaa Talyaaniga kadibna ay uga bood Spain iyadoo sidoo kalena badda halkaasi ay ka qabsan lahayd dhinaca maadaama ay socoto dhinaca bariga wadanka Mareykanka ee xeebaha badda Atlantic ayaa la doonayay in diyaaradu inteeda badan ay ku qaadato duulimaadkeeda dulmarka badda Atlantic laakiin se waxa la sheegay intaas ay uga leexatay sababo hadii lacala ay diyaaradda ku timaado cilad wadamada ay fadhiisanayso ee laga baqayo inay soo xiraan inay ka fogaato diyaaraddu waxay u weecad doontaa dhinaca bidix oo ka dhigan in ay isku badi doonto dhinaca wadamada Ingiriiska iyo Jarmalka oo iyagu goorsi horeysay laga baqayo inay ka mid yihiin kuwa aan doonaynin inay qabtaan Netanyahu hadii lacala diyaaraddu xaalad degdeg halkaas u fadhiisato wararka ayaa sheegaya in madaxweyne Donald Trump uu kala hadli doono qadiyad waaweyn oo ka mid tahay si socodsiinta wajiga labaad ee xabad joojinta maadaama ay tii kale Lanas Trump ayaa la sheegay inuu si aad u xooggan u doonayo xabad joojintu si socoto isagoo la sheegay inuu doonayo inuu tan ka dhigto arrimo marmarsiya oo ku aadan inuu marka ka damaysa uu rabo inuu si aad u xaqiijiyo inuu isagu ahaa qofka ama misqaxda ka damaysay xabad joojinta hadeerta Trump waxa uu maraya ayaa la imtixaankii koobaad ee ugu horeeyay maadaama uu Netanyahu uu kula ballamay kooxda dhinaca loo yaqaan argagixisada ee sida aadka u xoogan ee mas'uuliyiinta maamulkiisa ku jiray macangageynta ay xaq jirka ee koofiyada in ay si aad u xoogan ay markaasi u taageerayaan dagaalka dib loo sii bilaabo marka ay dhamaato 42 maalmood oo markaasi gabagaboobi doonta bartamaha bishan aynu ku jirnay Febraayo waxaana la xaqiijinayaa in hadeerta wada hadalladu si ay u bilowdaan uu Trump korsi horeysay uu casuuntay ninkan una doortay inuu noqdo hogaamiyaha ugu horeeya aqalka cad ee Mareykanka soo wuxuu sheegay Trump inuu noqon doono tani arrin mas'uuliyadeeda uu qaadi doono hase yeeshee Trump ayaan la kasaynin sida uu isugu wadi doono aragtidiisa ku aadan qasaha la baneeyo iyo xabad joojinta balse isagu waxa uu dhowr jeer u sheegay inuu yahay nabad sameey nabad dhaliye ayaan ahay iyo ku tooqay wuxuuna sheegay in nabad dhalintiisa ay noqon doonto mid aad u xoogan ayaa leeyahay si kastaba noqotay Trump ayaa loo arkaa marba ka damaysan nin marba gidaar madaxa ku dhufanaya balse isagu wuxuu sheegayaa in uusan rabin in bariga dhexe xabadda ay ka sii socoto dhinaca kale Netanyahu ayaa xalay magacaabay taliyaha cusub ee ciidanka qalabka sida maamulka Israa'iil ee Saanuniyada kadib markii goortii horeysay ninkii loo jiray Hersi Halafi uu cararay isaga iyo 10 saraakiil oo dagaalka ku soo fashilmay 15 bilood oo ay dagaal aad u xoogan xiriir ay ku ayeen dadka reer Falastiin waati ayagoo kabna loo yeemin dalaalaadinay ay kala baxsadeen isla markaana isku wasiirasteen haatan Major General Iyal Samir ayuu loo magacaabay taliyaha ciidanka qalabka sida ee nidaamka waxaana la sheegay inuu sii wadi doono hanaanka ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa amar ku siiyay wasiirka Israa'iil u qaabilsan difaaca Israa'iil Katz inuu magacaabo arrintaasi kadib markay isku waafaqeen Major General ayuu Iyal Samir wuxuu noqon doonaa taliyaha cusub ee ciidankanada sidaas ayuu sheegay Samir wuxuu bedeli doonaa LT General Hersi Halafi kaasoo isagu is casilay kadib markii uu sheegay in gabi ahaanba ay ku fashilmeen dagaalkii inay ka hortagaan 7 October ee loo yaqaanay markaasi duufaantii Al-Aqsa iyo sidoo kale inay markii dambe xataa ay soo afgooyaan sheekashadoodii gabi ahaanba beenta ahayd ee ku aadaneed inay laynayaan dhammaan dadka halkaasi ku sugan sida warka loo dhigay ilaa adeerto ma jirto wax calaamada oo muujinaysa in awoodda ururka Hamas ee inay xukunto qasa iyo sidoo kale inay soo saarto agab hor leh ay in yarna hoos u dhacday waxaana taa loo arkaa inay tahay dhibaaxo aad iyo aad u xoogan oo ku dhacday dhinaca kalena madaxweynaha dalka Mareykanka afayeenka aqalka cad u qaabilsan haweeneyda loo yaqaan Caroline Leavitt ayaa weerar afka waxay ku
ku qaaday maamulka la sii daba jabacsanaya ee xilka ka degay ee Joe Biden waxayna ku tilmaantay in gebi ahaanba in ay dalka Mareykanka ay ku yaraato ama suquuqul ay ku noqdaan cuntooyinka qaarkood gaar ahaan beedka ama ukuntu ay tahay ayay yiraahdeen siyaasadda xumeed ee maamulkaasi waxay sheegeen iyadoo cirku marbarkadu si shareeraya cuntooyinka qaariyoobaya ee dalka Mareykanka ama se sicir bararka ayay ku eedeysay in sababta ay u yaraatay in ay soo saarto digaagu ama markaasi ukun ku filan oo dadku ay cunaan ay tahay siyaasad aad u xun runtii siyaasadihii dhinaca sicir bararka ee Joe Biden waxay ahaayeen kuwa hoogay oo baay ayay tiri haweenadan oo ku celcelinaysay kuna nuxnuxsanaysay sida ay gabi aysan u taageersanayn siyaasadaha qaarkood Leavitt oo isku daysay in ay kala cadayso arinta iyo caqabadaha haysta waaxda beeraha dalka Mareykanka US Agriculture Department ee loo yaqaan markaasi in dhibaatooyin aad u xooggan u soo galo waxaa jirtay ayuu yiri in xataa mararka qaarkood la amray ay tiri in la amray in la dilo bay tiri 100 milyan oo digaag ah ama markaasi doora dadka qaarkood ayaa doora dhaha dhinaca koonfurta waddanka hooy waxaana sheegeen in 100 milyan ee digaaga ee la dilay ay ahayd amar ay bixisay kadib markii la sheegay in ay xanuun laga helay lama kasayo sheegashada ah in 100 milyan oo digaaga lagu laayay dalka Mareykanka oo amray madaxweynihii hore inay runtaayeen kale laakiin waayadii ugu dambeeyay ayaa dadka qaarkood waxay sheegayeen inay jirtay talaalo la siinayay digaaga dawladda Mareykanka ayaa dhawaan sheegtay inay si aad xoogan oo la dagaalamay doonto sicir bararka si soconaya laakiin ilaa hadda siyaasadaha Donald Trump waxay ku wajahan yihiin kaliya cadaadisyo hor leh oo saaraya wadamada qaarkood iyo sidoo kale digdig laga yaabay dhinaca kalena dawladda Mareykanka ayaa waxa la sheegay inay daba jabacsan doonto ardayda haysata ayaa la yiri waxbarashada bilaashka ah ee laga soo qaaday daanta galbeed iyo dhulka Falastiin ee Falastiiniyiinta kuwaas oo uu sheegay madaxweynaha dalka Mareykanka in la masaafri doono inkastoo aan la garanaynin ardadan meesha loo masaafrinayo maadaama hadii Israa'iil la geeyana Israa'iil ay xirayso dhulka loo la geeyana aysan jirinin oo aysan Israa'iil ogolaan doonin dhulkan gabi ahaanba kale ha tageen maadaama dad firfircoon yihiin ayuu waxa la sheegay in ardadan ay ka qayb qaateen banaanbixii xagaagii hore dhacay kaasoo si aad xoogan ay ardada uga soo horjeeday xasuuqa Mareykanku uu taageerayay sida lixaad kale ee dadka reer Falastiin lagu gaaguntirayay bacsiga uu haatan Trump uu amray ee ardaydii jaamacadaha fiican ee dalka Mareykanka sida jaamacadda Harvard iyo kuwa kale ka mid ah Yale iyo sidoo kale dhowr jaamacadood oo kale oo ka tahay George Mason ayaa la sheegay inay sii socod doonaan ugaarsigooda taasoo dad badan ay ku tilmaameen in Trump uu faliwaali arintaasi kale yahay una qabo aragtiyo aad fool xun oo aan ahayn kuwa wanaagsan marka ay noqoto ficilada noocan oo kale dadka qaarkood waxay ku tilmaameen inay marka ka dameysa ay kaliya dhali karto soo leedahay karto hal arin taasoo ah in dadka reer Falastiin ay adkaystaan dhulkoodana ay sii joogaan kuwa xataa ka imaalahaana aysan ka imaanin maadaama kuwii tagay bal soo musaafirinayo la baacsan